الرحيم داوديال برنامجكeenan dhinaca shaqo abuurka dalka Soomaaliland ayaa waxaanu ku eegi doonaa Mukhtaar Yuusuf Cumar oo isagu kamid ah dhalinyarada Soomaaliland ee iyagu ku shaqeysta farsamada gacanta Taya Production Workshop waxa maamulka Mukhtaar Yuusuf Cumar bal hadda waqtigii uu aasaasay sidii uu aasaasay iyo halku maanta ay wax la marayaan aan ku soo dhaweeyo barnaamijkan aad baad u mahadsantihiin sida quruxda badan leh ee aad noogu timaadeen marka labaad meelad warshad shirkaddan Taya Production waxaanu aasaasnay muddo sanad iyo badh ah markii hore ismaan lahayn shaqo intan leeg bad ka helaysaan magaalada wadanka gudihiisa laakiin alxamdulillah imika shaqo ballaaran baan ku haynaa waxaan ugu xidhan jaamacadaha wadanka oo dhan waxaan ugu xidhan hay'adaha iskuulada dhammaan macal shacabka magaalada si fiican loogu xidhan yahay markii hore waxaan islahayn waxba qaban kari maysaan oo waxba qabsan kari maysaan halkan waxba lagu qabsan kari maayo laakiin waxa loo cadaatay in si fiican shaqooyin fiican ay wadanka yaalaan loo baahan yahay in dhaqdhaqaaq la sameeyo waxaan la shaqeeyaa imika 14 shaqaalaha la shaqeeya qaarkood aan wax barno ka howlgala Taya Production Workshop meeshaadan yar shan iyo 14 kaasiba kharashkooga iyo waxooga ay shaqeystaan way qaataan maalin walba waxa kale aan u shaqeynaa qolooyinkan hay'adaha oo iyaguna shaqooyinka noo keena shaqooyinka lagu caawinayo iskuulada lagu caawinayo noo keena horeysiga gacanya ka siiyay oo horeysay ciida gacanta iga siisay waxa weeye jaamacadda Golis oo aanon waxba haysan oo aan qalab haynin meel aan ku shaqeystaa aanan haynin ayay waxay siiyeen qandaraaskii ugu horeeyay waxayna igu siiyeen jaamacadda dhexdeeda oo ay yiraahdeen halkan ba ku shaqeyso qalabkiina iyaga ay soo iibiyay waxa kale iyaduna si fiican iga caawisay shirkadda Milgo oo intii aan hawlahan ku guday jiray shaqo rasmi ah ay siisay oo aan shaqada rasmiga aan kala soo baxayay masaarifayga markii dambe Ilaahay uu noo barakeeyay imika si fiican ba shaqada noogu socotaa Mukhtaar fikir fiican baad keentay farsamada gacanta kamana dhalisay dhalinyarada Soomaaliland ee farsamada gacanta aan waxba ka aqoon maxaad soo jeedin lahayd wallahi horta muddo 2 sanaday bada ka hor waxaan lahaa horta wadanka wax shaqo ma yaalaan shaqo la'aan aad bay warwar nooga hayay shaqo la'aan wadanka taala laakiin waxa noo cadaatay in uu wadanku shaqo ay buuxdo loo baahan yahay sidii looga shaqeysan lahaa nin waliba waa inuu fikirkeena uu ku shaqeysan karo dadka wax kula qaybsan karo waxaan kula talin lahaa dhalinyarada in wadanku uu dihan yahay loo baahan yahay laakiin in farsamo la keeno si looga shaqeysan lahaa wadanka gudihiisa marka waxaan kula talin lahaa shaqo la'aan ka warwarin shaqo way buuxdaayay qof fikira baasha oo maskaxda tuujiya ويدين هلي شقيو وكستود بانتين به waxaad ku soo baratay adu anigu waxaan ku soo bartay wadanka gudihiisa dadku laakiin waxay haystaan inaan China ka yimid yamba Hindiya dhulka ayay haystaan kamana iman halkan ma ku soo wax ku bartay waxaan la bartay gaajada la bartay farsamada markaan amal leeyahay timiday waxa la dakhil keentaa badda isku tuuri maysid oo tariin maysid wala farsamo keentaa intana farsamada waxaan la bartay baahida keenaysa inaad farsamo keento marka hore waxaan sameyn jiray taawarda isgaarsiinta Africa Online baan sameeyay Nation League baan sameeyay Santel baan sameeyay waxaan u doonan jiray wax 8 mitir korkood baan wax kala soo bixi jiray oo aan dhisi jiray inta marka hore si sameeyo in marka dambe taagi jiray markii dambe aan arkay shaqadiisa soo taagtayna waxaan bal farsamo keen farsamadii aan keenay waxaan arkay hadda farsamooyinka wadanku way buuxaan waa inaad waxaan wadanka ka jirin oo hore aan lagu sameyn jirin aad la timaadaa marka waxaan ay muuqatay in farsamadan kuraasada jaamacadaha iyo iskuulada ay banaan tahay oo aan wax cid u sameeyay jirin waxaan sameeyay ka tayir badan yihiin kuwan wadanka yaala ama kuwan wadanka la keenay dibadda laga keeno waan arkaynaa bire ka sameeyay waxa qalabkaaga way ka tayir badan yihiin
marka inta aanan bilaabin kuraasida aanan bilaabin sameeyntooda waxaan bilaabay in aan sameeyo mashiinkii laablaabayay biraha mashiinkaas oo aan waday 2 bilood aan waday oo sameeynayay markii tan waxaan ku guuleystay mashiinkii inuu suurta galo ranjacaasna waan mariyay waxa loo haystaa in aan ka keenay wadamada Yurub laga keenay ma haystaan laakiin aniga sameeyay mashiinku wuxuu banaal gareenayaa birta kursiga aan sameeynaya waxa weey kursi gidigiisa uu laablaaban yahay oo meel uu ka jabayo ma leh marka cid kasto aragtaa waxay garanaysaa kursigan in tawarada mid sameeysa waan sameeyay tawarada iskaarsiinta waxaan sameeyay Afrika 24 taawar baan sameeyay 14 taawar baan sameeyay law yacado ilaa Buuhoodlan taagay law yacado ilaa Buuhoodlan uga soo taagay hargeysa gudaha go'aan ka taagay 2 taawar oo ay leedahay Afrika tawarkii ugu horeeyay soo taago Afrika online baan waxay 2003 bahayd waxaan ka taagay buurta leeyahay fadhi weyn ee Sheekh Dusheeda anigu aad uga warsanaa farsamadaas suurtagal ay suurtagaleynin laakiin Ilaahay wuu guuleeyay inuu suurta gashay marka waxaan ku helay xabadii tawarkii ugu horeysay markaan ku guuleysanay inaan qaadano tawaradii kale ee ay loo sameeyay shirkadda imika tawarkan taagay 2003 ilaa hadda wuxuu ka taagay law yacado sidii buu taagay ka taagay tawarka originalada ay dibadda la keeno waxaan sameyn karnaa waxyaabaha wax kasto bir ka samaysan sida birishada oo kale waan sameyn karnaa waxaan ku rajaynayaa insha Allah inaan sameeyno birishada qalabka loo isticmaalo waan sameyn karnaa hadii loo helo qalabkayga loo helo waxaan lagu helo waniyad sameeyon haddii aad ku niyadsan tahay waxaan aad qaban karto oo qabsanaysaa laakiin haddii aad ka warwarsanaato inaad qaban karin oo istiraad ma qaban kartid waxba qabsan kari maysid dadkan horumaray wax qabsadayna waa dad ku niyadsan wax qabadkooga ay qabanayaan oo aan ka warwarsanayn Mukhtaar Yuusuf Umar Mukhtaar Yuusuf Cabdi waxa uu ka mid yahay dhalinyarada reer Soomaaliland ee la timid shaqooyinka shaqo abuurka ee farsamada gacanta baldaawadayaal warbixinaha naga siiyo isla markaana ay noo sharaxo kuraasta iyo qalabka kala duwan ee gacantiisa ku sameeyo bal hadda halkan aan idinku soo gudbino kuraastii iyo qalabkii kala duwanaa ee gacantiisa ku sameeyay dhamaantiin daawasho wacan kambadhada waxaan lagu talagalay inay ku fadhiistaan dumarku ay ku fadhiistaan ama meelaha ka fajiinaha lagu talagalay lagu fadhiisto oo dhalinyaradu ku shaahayso waxaan lagu talagalay waxa weey kabad waa miis iyo afartiisi kursi waxa lagu talagalay cuntooyinka amba ay ardaydu marka xaafadooda joogtay wax ku qorato ayaan lagu talagalay kursiga halka ka soo muuqda isagana waxa lagu talagalay waa desk baa la yiraahdaa waxa ku fadhiista ardayda ayaa wax ku akhrisata amba iskuulada waxa loogu dhigaa iskuulada ayaa loogu dhigaa ardayda biraha halka muuqda waxa birihii telecommunication iskaarsiinta oo bracket baa la yiraahdaa waxaan sameeynaa shirkadda Samtel baan sameyn doonaa biraha weyn shirkadda Samtel baan sameeynaa kuwa iyaguna gagaaban waxa iska leh shirkadda Sam Cable ayaan iyagana u sameynaynaa wallahi alxamdulillah shaqo fiican baan waxaan sameeynaa sararihii boardingka ee studio alley sarartaas oo qabalka yadar waxaan sameeynaa sararihii boardingka ee studio alley ee ardayda ay ku farsanayeen boardinada waxa kale oo bir ka samaysan waxaan u gelinaa rabadhadii original ee xagga hoose oo iyagana loo keenay Ethiopia looga keenay waxa kale aanu sameeynaa xoolalka carruuraha yar xoolka carruuraha lagu rido ka tabaanada waxa kale aanu sameeynaa Allahu musta'an waxaan sameeynaa leexooyinka carruurta yar lagu talagalay oo kursiyaad sameyn kartaa maalintii waxaan sameeynaa 24 kursi baan sameeynaa alxamdulillah dhalinyarada sameeysa waa 14 bayaan 24 kursi aan sameeyno maalintii shaqo fiican bay nabad ka helaan ala kursi bay wax lagu sameeyaan teetana ala kursi baan u siinaa waxay ku shaqeysteen سريرتنا waxay ka mujinaal ah Allahu musta'an sariirahan dibadana inoo ka jabaya ma hay wax sariirtani waxay iska ka wada samaysan tahay waana arkaysaa way banal gareysan tahay geeskii awal lagu sameyn jiray malay waan banal gareynay mana dakhayso carruurta lagu seexinayo jabina mayso way ka tahay fiicanta wadiga arkaya waxa kale saarnaa balowd baan saarnaa sina birahan feelaha uga qabanin qofka ku seexanaya balowd baan saarnaa marka balowdkii aad ka baan saarnaa dadku aad bay nagu yimaadaan wallahi dadku si fiican nagu yimaadaan way qaar ka mid ah shaqaalaha iyagu ka howlgala goobtan ayaan waxaan ku weydiin doonaa
mukhtaar iyo workshopkiisa yar ee dhinaca productionka farsamada gacanta bal siyaabaha dhalinyaradaasi ay uga heleen shaqo abuurka bal hadda qaar ka mid ah shaqaalaha goobtaasi aan kula kulannay aan ku soo dhaweeyo magacayga waxaa la yidhaha Saddam Xuseen Xasan marka ugu horreysay halkan shaqadaan ka bilaabay farsamo iyo wax toona maan aqoon markii dambe waan la qabsaday waxyaabo badan ayaan ka bartay meeshan waxyaabahan markaan bartay aad bay ayaan ula qabsaday waxyaabo badan ayaan ka bartay oo ka sameeyay kuraasidan iminka ayaan wataa waxaan ka tahay meesha injineer baan ka hooday waan sameeyaa kuraasida sareex walba diyaariya sareebahan iyo kuraasidan ayaan sameeyaa anugu waxbarashadeedana dee waan ku dadaalay markuu ardaygu wax barto wuxuu ku dadaalaa hadhow inuu shaqo helo laakiin anugu tan markaan bartay waan aad baan ugu dadaalay iminkana waan wataa shaqadeeda okay ninka xigaan siiyo magacaygu waa Khadar Cabdullaahi Ismaaciil waxaan nahay producer-ka shirkadda warshada kuraasta ee Tayo Production runtii maana aqoon wax farsamo aan ku shaqaysano dabeetana markuu dalka tahriibkii ku batay hawlihii iyo duniya jabkii dalku ayaa waxaanu u nimadnay injineerkayga Mukhtaar si uu dhiirigelin ugu sameeyo iyo wax soo saar in ay wax bartaan dhalinyaradu oo ay dalkooda munaafacaad iyo kala soo baxaan shaqooyin dabeetana sidaa arkayso waxyaabaha horteenayna waa baristiila mishiinaan ku laabnaa kuraastan oo kale waa alaab garantiina oo tan yeera marka anagu waxaan nahay producer soo saara farsamada gacantana aad baan ugu faraxnay dad badan oo ka faa'iideystaan iminka mid kale ilaa 20 kooxood baan nahay wala way qaar maqayhiin oo ay u soo shaqeynayaan meelaha qaar kood marka aad iyo aad wax la dhalinyarada dalkooda aaminaan ha ka faa'iideystaan farsamooyinka gacanta skills-kuna waxyaabaha hadee qofku uu nolosha kula tacaali karo noloshana kula tacaali karo marka waxaan leeyahay de farsamada gacanta hal ogaado bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waxa la yiraahdaa Maxamed Xasan Maxamed Allamagan halkan waxaan ka ahay madaxa hawlgelinta ciidanka hawlgelinta warshada Tayo Production ciidanka shaqaalaha markaan hawlgelinayo nin walba birtiisii iyadoo tayada dhameystiran wali Mukhtaar igala xisaabtamaya si fiican oo shaqeeyaan si fiican oo soo baxaan ummadana waxaan leenahay indhooga daha arkaan waxay dibadda uga dalban lahaayeen dalkooda waa lagu sameeyaa oo mar walba ugu baahan inay dalkooda dadkooda soo noqdaan dawladuna waxaan u sheegnaa inay hoos noo ogaato marka waa ka bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Khadar Shida Faarax waxaan ahay farsamo yaqaanada ka tirsan halkan shirkaddan wax soo saarta ee ka shaqeysa kuraasta iyo materialkan Tayo Production aad baan ugu faraxsanahay inaan fursadan ka faa'iideysano maadaama ay waddanka ka jirin farsamooyin fara badan iyo camalo laga shaqeeyo waxaan aad ugu faraxsanahay farsamadan iyo shaqadan iyo hawlahan anagu aanu abuuranay ee aanu isku daynay inaanu soo saari karno bal wax anagu intaanu isdhiiri gelino inaan wax soo saarno taasana aad ugu faraxsanahay taasana nimiga ka shaqeyno magacaygu waa Shaafiic Abdiyadan Axmed magacaygu waa Shaafiic Abdiyadan Axmed waxaan ahay arday wax ka barta iminka wax waan bartay anuu birahan googoya waanan laabaa waxaana iga dhiman farsamadii samayntuun anuu halkan waxaan imid iminka muddo 6 bilood baan joogaa iminka wax igu filan oo ka bartay gelin koorno waxbaan dhigtaa kadamana meesha meheradaan imaada okay bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu Saciid Cabdi waxaan ka bartaa Tayo Production inay ku filan waan bartay laakiin qalabyada badan kuraasida sida sarro kale uma iga dhiman okay waxaan leeyahay ku soo dhawaada Tayo Production work okay aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin shaqaalaha kala duwan ee iyagu hawlaha kala duwan ka wada goobtan aan ku sugannahay ee Tayo Production tawadayaal barnaamijkan aan ku eegayno shaqo abuurka goobta ganacsi ama nimanka shaqo abuurka la yimid ee Tayo Production workshop halkan tawadayaal waxay ka mid tahay jaamacadda weyn ee Hargeysa University sida idinka muuqata waxaan qalab oo yaala iyo kuraastan taala ee loogu talagalay waliba in maanta lagu qabto muxaadaro uu ka geliyo mid kamid ah culimada waaweyn ee Soomaaliland in hoolka weyn ee jaamacadda waxa sameysay oo markaas soo bandhigtay ama farsamaysay shirkadda Tayo Production hayno sharaxo shaqaalaha mid kamid bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo magacaygu yahay Khadar Cabdullaahi Ismaaciil ahna shaqaalaha Tayo Production warshada kuraasta waxaan goobtan aan ku sugannahay yaala 500 oo kursi oo kamid ah kuraasta ay soo saartay shirkadda Tayo haddii aan idin faahfaahiyo kuraastan oo ah kuraas tiradoodu tahay 500 kursi oo jaamacadda Hargeysa
tirooyin intaa ka badan oo kalena waxaan u sameynay dugsiga qalinjibinta dugsiga tababarka ciidanka ee Dirweyne oo kale aan u sameynay marka ba soo koobi karo tirada kuraasta aan sameynay dalkan u sameynay marka waa kuraas garantiina waa 10 year waxa laga maarmayaa kuraastii ahayd one time lose-ka ee wasal ku jabqaayada marka kaliya jabisay deedna ku waa 10 year waa garantiin dibadna sidaa iyo si ka badan ayaan dadaal ugu jirnaa inaan waxyaabihii dibadda la keenay sida sariiraha kuraasta waxyaabo fara badan aan u soo saarno dalka imika baabuurka rogaya ee ku rogaya jaamacadda Hargeysa waxa sameysay kuraasta ma meeshina sameysay taya sameysay taya production ay soo saartay waa kuwii taya ay soo saartay waana 10 year jaamacadda Hargeysa ayaa naga codsatay inaan u soo saarno shataab qolab marka waa kuraastii ay taya soo saartay waana wax lagu farxo runtii lagagana maarmayo alaabta qarada yar ee dibadda ka imanaysa dhalinyarada jaamacadda Hargeysa waxaanu ku sugannahay jaamacadda Hargeysa idigu waxa tihiin dhalinyaro la timid shaqo abuur farsamada gacanta dhalinyaraduna inta badan maadadaasi farsamada gacantu jaamacadda Hargeysa way ku yar tahay maxaad soo jeedin lahayd ray waxaan soo jeedinayaa talahaan inaad fakal kamid laga dhigo skillska waliba qaybta technicalka lagu daro jaamacadaha waayo waxaanu la soconaa imika Aasiya oo kale waxa arkaysaa qof siteen PhD oo hadana iska master wata oo hadana technical ku shaqaysanaya weldingka waliba khaasatan marka waxaan leeyahay iyadana laga dhigo xirfadaha qaybka fakal kamid barashada technicalka ayaan ku soo jeedinayay